su-aashaan weydiinaya waxa weeye baarlamaanka Puntland oo halkan uu siiyay xasaanad adiga iyo madaxweynihii ku soo maaragtay magacaabay intaba ayna guddigii u xil saarnaa ay soo gudbiyeen in aanay wax wada shaqeyn muddadii 6 bilood la soo dhaafay labada kala fadhiyo u dhaxaysay ayna yeelan sidee wasaaradda amniga oo wasaaradda amniga dalka aad u xil saarnayd iyo baarlamaanka Puntland wax xasaanad ku sii wada shaqeyn doonaan maadaama ay markii u dambeysay oo dhallenka ahaa oo golaweynihii ku yeeray aad hor timid intii kala se ay la qiray aduna aad qirtay inay jireen ajiibid la'aan guddoonka ama guddiga joogtada iyo guddigii shaqadan ugu xil saarnaa la socodka xaaladda amni ee dalka ee baarlamaanka Puntland inaad iyagoo waliba safar dheer ku soo galay oo magaalada Boosaaso kuugu yimid markii aad ugu imaan weyday inaad qaabil weyday arintaas waxaan marka qabaa inaad maaragtay cadaysid sida muddada dambe loo wada shaqeyn doono su'aasheeda kale waxa weeye waxa ka jira gobolka Mudug xaalad amni oo muddooyinka u dambeeyay ay ku hawlanay dawladdu iyadoo aadan ilaa iyo hadda wali gaarin mudana wasiir dhinacaaga bedelkeedana madaxweynuhu u xil saaray wasiirro kale sida wasiirka ku-xigeenka waxbarashada wasiirka maaliyadda xildhibaano iyadoo doorkaagii uu meesha ka maqan yahay sababta ilaa iyo hadda aad u gaarin gobolka Mudug wasiir waxaan rabnaa inaad iyadana noo sheegtid waxaan kaloo ku dharraacsanahay inaad bal noo faahfaahisid su'aasha saaxiibkeena uu ku weydiiyay xildhibaanku oo ah in guddigu kugu soo eedeeyay in aad askaraysay dhalinyaro da'yara iskuuley ah gobolka bari oo aad sheegtay inaad muddo ku hawlanayd taasoo sababtay xaalad amni darro ee magaalada Boosaaso sababtayna in ay qaarkood ku waayeen naftooda ciidan dhalinyaro ah oo aan hawlgeliyo eedaymihii la ii soo jeediyay sida mudanaha sheegay inay ku jirtay ciidan aan sharciyeysnayn oo aan anigu hawlgeliyay arrintaa waxaan kaga jawaabay ma jirto si guud ahaan golaha hortayda fadhiya qaybtoodna ay maqan tahay raaligelin guud baan siinayaa waxaana ballan qaadayaa aniga oo ku dhaqmaya qodobka 59aad ee dastuurka ee tilmaamaya wada shaqaynta golayaasha inaan si buuxda oo dhammaystiran inaan golaha shacabka ula shaqeeyo si gaar ahaaneed inaan ula shaqeeyo guddigayga amniga si gaar ahaaneed inaan ula shaqeeyo guddiga joogtada ah si guud ahaaneedna golaha dhammaantii inaan ula shaqeeyo nin garan waaye maahi ballankii maanta lay qabtay 9 subaxnimo inaan baarlamaanka ku imaado waxaan ku sugtay saaka salaada subax inaan ku tukado baarlamaanka aniga oo waxaa la yidhi dab aan kuleylkiisa la arag dabaskiisa lagama leexdo su-aasha ugu dambaysa oo ah ma aaminsan tahay kalsoonida in lagaala noqon karo waxaan oranayaa wata isoo kallaysay iyadu uma baahan no comment haddii guddigii amniga ay Boosaaso kuugu yimaadeen oo ay muujiyeen in aad ka leexleexatay la kulankooda wada shaqayntiina dambe sidee bay noqon doontaa taa waxaan leeyahay arag la'aanta iyadaa hore qaabka aan u sharaxay bay u dhacday wax xumaana kuma jirin mudug maadaama aanu shaqo ku maqnayn oo marna aanu hawshaa Boosaaso xaaladda adag lagu jiray marna aanu tuuta gashanay oo aanu sanaag iyo Highland xagga aanu jiray in la yiraahdo ka soo bax wayara arkay shaqada ay wasiiradu ka qabteen gobolka Mudugna shaqo waxay ahayd ay aniga igala tashanayeen maadaama shaqo amni ahayd wada tashi aan ku qabanaynay waana uga mahad celinaya waxa wanaagsan sharaf kale iyo sida xilkasnimada leh iyo wanaag badan oo ay ka qabteen gobolka